لا يزال الخير حيا لا يزال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاميشا الشفاء سو دوادا meel kasta joogtaan caalamka daafihiisa saaka maxayna cusub daaweyn cusub oo yimi talabaad sidoo kale waxaynu dhakhtarkii markii hore naga yimi xarunta Nairobi hadana ku maqnaa qaybta Garowe inuu soo laabtay qaabilidii iyo isdiiwaangelintii way socotaa walaalaha al-shifaa meel kasta joogtaan dadka ku nool Hargeysa nawaaxigeeda ka faa'iideysta insha Allah baaritaanka ugu socda dhakhtarkana uu inoo jooga insha Allah inta bishan ka hadhay kulli uu jooga insha Allah talabaad kale waxaan idin sheegnaa insha Allah saliidii maxay ahayd joof lagu darsan jiray cuntada waxyaabaha xanuunada loo isticmaalo waxaa ka mid ah macaanka dhiikarka waana saliid saytuun iyadoo dhowr qaybood insha Allah way inoo timi ka faa'iideysta walaalaha Hargeysa jooga talabaad oo kale waa dhowr nooc saad u jeedaan iyadoo 2 litir iyadoo nus litir xanuuna badan hadda saad kale la socotaan saliid maxay ahayd saytuun waad ka warhaysaan waa ka daawo waxa leen insha Allah walaalaha Hargeysa ku nool ee macaamiisha al-shifaa sharafta leh insha Allah soo dhawaada dacwo furan waji furan insha Allah ku soo dhawaada